boqortooyadii xabashida boqortooyada xabashida waxaa xarun u ahayd magaalo la yiraahdo Aksum waxayna ahayd awood aan la dhayalsan karin. boqortooyadaas waxay ka talin jirtay dalalka maanta loo yaqaano Eritrea, Ethiopia, galbeedka Yemen iyo qaybo ka mid ah Suudaan. caqiido wareer, dulmi iyo kibir kama marnayn. waxa ayna gaartay heer uu isku dayo ninkii la oran jiray Abraha inuu Kacbada ku soo duulo asaga oo wata maroodiyaal badan oo gaashaaman. alla ayaa duulaanka uu soo qaaday ka caabiyay Kacbada kuna saliday shimbiro joog hoose iyo mid sare ku socday. shimbirahaas oo ganayay dhoobo kulul oo dhagax oo kale ah. sidoo quraanka sheegay, Abraha ciidankiisii waxaa gaaray jab iyo naasabeel. taariikhda gashay quraankana lagu xusay. dadka maxaa diin u ahaa inta uu soo bixin nuurka islaamka. aadanuhu wuxuu ku sugnaa xaaladii ugu liidatay ee soo marta abid, hadday noqon lahayd xagga diimaha, dhaqaalaha, siyaasadda iyo dhaqanka. xilligaa waxaa baahay jahliga xagga caqiidada, aqoonta iyo fikirka waxaa la tuuray kutubkii samaawiga ahayd ilaa gabi ahaanba meesha ay ka baxday saameyntii diinta ku lahayd nolosha. intii yareed ay jirtayna waa la macbileeyey, koox walbana siday doonto oo ay maslaxadeeda ka dhex aragto ayay diintii u fasirtay. markaasaa diintii xareedda saafiga ahayd lagu calwiyey afkaar iyo dana gaar ah. taasina waxay sababtay inuu bilowdo loolan iyo khilaaf aan lahayn halbeeg loo noqdo. waxaa kaloo bilowday fasaad bulshada qaybaheeda kala duwan wada saameeyey oo aysan cidina ka badbaadin. marka laga reebo dad yar oo doorbiday inay bulshada ka dhex baxaan iskuna qariyaan hawdka, buuraha iyo meelaha bahgooyada ah, dunida inteeda kale waxay gashay jahwareer, iska hor imaad iyo colaad lagu rugmaday. markii laga tegay diintii Alle subxaanahu wa tacaala, waxay dadkii bilaabeen in ay iyagu samaystaan qaanuun iyo xeerar ay ku bedeleen sharcigii Alle subxaanahu wa tacaala.